waxaan rabnaa inaan bilaabno suugaanta inaan isticmaalno in lagu wacyigeliyo shacabka si qulubtooda loogu dhiso. waxaan rabnaa in suugaanta lagu taageero nabadda iyo xasiloonida si loo soo celiyo qabkii iyo sharaftii iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabnaa in suugaanta lagula dagaalamo qabyaaladda si dib loogu yaglaalo qarannimo cusub. waxaan rabnaa inaan suugaanta uga hortagno kala qoqobnaanshaha oo aan uga shaqeyno midnimada iyo isu soo dhaweynta ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabnaa inaan suugaanta ku dagino dagaalka iyo colaadaha oo aan uga shaqeyno dowladnimada iyo dib u heshiisiinta. waxaan rabnaa inaan suugaanta uga shaqeyno inaan ku kala soocno xaqa iyo baadilka. waxaan rabnaa suugaanta inay noqoto meeshii aan runtii isugu sheegi lahayn oo aan isaga qaban lahayn kuwa ka shaqeeya qabyaaladda iyo qarandumisnimada. waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed kulligood ugu sheegno suugaanta inuu dhammaaday waqtigii qabyaaladda, maadaama aad ka shaqaysaan in quluubta shacabka aad u jeedisaan jihada saxda ah ee qiblada, maadaama shaqadii aad bilowdeen dabaysheedii aan dareemayno. waxaan u baahannahay shaqadaas inaan dardargelinno. si marka shaqadaas aan u dardargelinno waxaan ka shaqaynaynaa sida aad sheegteen inaan badinno kulamada, go'aamada maanta aan shirka ka soo saarnana aan fulino. waxaan halkan idinkaga sheegayaa marka haddii idinku aadan bilaabina inaad dalka jihaysaan, haddii aadan bilaabina kuwa raba dangaara inay ka shaqeeyaan inaad runta u sheegtaan, haddii aadan u sheegina inay ku dhowaad 30 sano oo qarandumisnimo ah nagu filan tahay, haddii aadan u sheegina dunida inaan ka harnay inaanan u aqbalayn in carruurteennuna ay dunida ka haraan, haddii aadan u sheegina mustaqbal cusub ayaan rabnaa inaan dhisno, cid u sheegaysa ma laha. waxaan laakiin idinkugu bishaaraynayaa anigu inaan aaminsanahay in Soomaaliya ay dib u dhismayso, inay ku socoto dariiqa saxda ah, in sharaftii karaamada ummadda Soomaaliyeed ay soo noqonayso, in waqti kooban gudaheed dalkan dunida ay ku soo ordi doonto, in annaga shaqana loo soo doonan doono, in iskuullada isbitaallada loo soo doonan doono, in Soomaaliya ay mar kale noqon doonto libaaxyada geeska Afrika. si Soomaaliya ay u noqoto libaaxyada geeska Afrika waxaa la rabaa libaaxyadii Soomaaliyeed oo halkan fadhiya inay hurdada ka kacaan, dadkana ay hurdada ka kacayaan. waa mahadsantihiin.